qofkii aan Hargeysa tagin reer Somaliland uma garaabayo magaaladaas hal guri oo ka taagnaa ma jiro maanta aan tagayaan ayada dhanna waxay ahayd burbur baaba iyo dugaafada ahayd cadow banaanka ka soo weerarayna saas kama dhigin magaaladaas waxa sidaa ka dhigay waa ciidankii qaranka dabaabaadkii qaranka diyaaradihii qaranka sidaas ka dhigay markii ugu horeysay oo Hargeysa tagay waxay ahayd 94 samafal baan u tagay 94 xilligaas iyo xilliyo qofkii aan Hargeysa tagin reer Somaliland uma garaabayo magaaladaas hal guri oo ka taagnaa ma jiro maanta aan tagayaan ayada dhanna waxay ahayd burbur baaba iyo dugaafada ahayd cadow banaanka ka soo weerarayna saas kama dhigin magaaladaas waxa sidaa ka dhigay waa ciidankii qaranka dabaabaadkii qaranka diyaaradihii qaranka sidaas ka dhigay qofka marka aan duruuftaas iyo dadkaasi meesha aan gaaray aan jirnay uma garaabayo qadiyada iyo xajmigeedii buucdigeedana ma fahmi karo anigu marka maalintaas ay saas u burbursadayna waan tagay kadibna muddada intaas nin ka shaqeynayay oo dadka dareenkooda hadda isku bedelayay og ayaan ahaa waana degay oo muddo 6 sano ayaan degan laba waxaan kaloo runtii ku faraxsanahay inaan geedi socodkii wada hadallada ee Soomaaliya iyo Somaliland wasiirkii daadiinayay muddo 2 sano ku dhow inaan ahaa aydan runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxay labadaas arrimood bay dhaxalsiis ama xogaadnimadaas hore ama wada hadalkii daadiintoodii waxay dhaxalsiis laba arrimood koow qadiyada Soomaaliya qadiyad la xalin karana inay tahay dhinaca kalena qadiyo aan sida loo maleeyo u sahlanayn oo u baahan in wada hadal iyo process iyo xoogaalnimo xoog badan lagu xaliyo inay tahay ayay dhaxalsiis saadaradeed waxaan isleeyahay qadiyadaasi qofkii xalin lahaa inaan ahaan aaminsanahay xoogaalnimo ku xalin lahaa dareen ku xalin lahaa aqoon iyo dad aqoon ku xalin lahaa inaan ahay ayaan aaminsanahay waan la xalin karaa wada hadalladii gaaminayo daadiinayana waxaan aaminsanahay marka qadiyada iyo buucdigeeda loo fiiriyo iyo meesha aan keenay in guulo waaweyn laga gaaray ayaan aaminsanahay laana guush waxa u horeysa kalsooni abuur ayaa guusha u horeysa kalsoonidiina waa abuuray annagu wada hadallada markaan ku jirnay waxaan ka imaanaynay 3 arrimood ayaan ka imaanaynay waxaan isleeyahay maamulka hadda joogana 3 arrimood cagsigeedu ka yimaadaa waana meesha bahasha ay laada anagu koow waxaan ka imaanaynaa dadka reer Somaliland dad lagu tacadiyay inay yihiin oo tacadigaasi dhibka gaaray in looga garaabo mudan laba waxaan ka imaanaynay nabadda iyo xasiloonida iyo horumarinta Somaliland inay mas'uuliyad naga saaran tahay sida dalka intiisa kaleba ay mas'uuliyad naga saaran